waxaan u tacsiyeenayaa maamadii ku geeriyootay iskuulkii jaamacadda Soomaaliya waxaan u tacsiyeenayaa dhammaan maamadii iyo duruuf iyo dan iyo dalka Soomaaliya marxalad adag ku jiro ku soo korsatay ciyaalkeeda markay jaamacadda u dhamay waxa Ilaahay uga baryayaa ayadana qabrigeeda Ilaahay inuu u waasiciyo uu uga dhigo muxuu ahaayo dhiigeedii qalinka isdhex yaalan uu tusaale ugu noqdo dhiigii ugu dambeeyay hooyo Soomaaliyeed laga daaday inuu noqdo insha Allah rajeynaya halkan waxaan ka arkaa hooyaday waryaatan oo kala arkay damul jadiid kooxdan maafiyada ah ee waddanka la wareegtay horjoogahana uu yahay xasan sheekh maxamuud ayaa waxa ay bilaabeen inay dacaayad ku furaan hooyada dhashay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo xabiibul malaayiinkii ay adduunka u jeclaayeen muslimiinta oo dhan waxa ayna bilaabeen in hooyadan ay ku tilmaamaan inay noqotay mid geeriyootay kadib shalay oo aan warbixinteeda idinla wadaagnay isla markaana idinkugu soo baahinnay in hooyada dhashay xabiibul malaayiinkii ay Soomaalidu jecleed maxamed cabdulaahi farmaajo xaalad degdeg ah darteed isbitaal loo dhigay iyadoona halkaasi xaaladeeda caafimaad lagu dabiibayo balse saacadihii ugu dambeeyey baraha bulshada waxaa hareeyey warar hoose oo sheegaya in hooyada dhashay maxamed cabdulaahi farmaajo ay geeriyootay warkan waxaa hawada soo geliyey koox taageersan kooxda haatan talada dalka haysata ee xaaluf iyo xarash inagoo aynu u bixinnay damul jadiidna loogu magacaabo oo uu horjoogaha u yahay Ilaahay ummadda ha dhaafiyey xasan sheekh maxamuud isla markaana waxa ay ku xumaynayaan madaxweynihii xabiibul malaayiinka ahaa oo Soomaalida dhan ay jeclayd isla markaana si weyn ay bulshada Soomaaliyeed u taageersan tahay waa maxamed cabdulaahi farmaajo haddaba maxaa ka jira wararka sheegaya inay geeriyootay hooyada dhashay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo xabiibul malaayiinkii ay Soomaalidu jeclayd waxaan rabaa inaan muuqaalkan kugula wadaago cadaymo sir ah oo aynu ka helnay kooxda degan Villa Soomaaliya oo markaasi dad suxufiyiin isku sheeg ah u qaybinayso warar ku aadan inay faafiyaan inay geeriyootay hooyada dhashay maxamed cabdulaahi farmaajo oo xaalad emergency ah isbitaal loo dhigay xilli uu dhiikar ku kacay sidaan warbixinadii hore idinkula wadaagnay muuqaalkan inta aanan guda gelin waxaan aynu tusna hal mar haddii aynu nahnay taageerayaasha kooxda nabad iyo nolol in damul jadiid markaasi aad baraha bulshada uga awood badan tihiin idinkoo dhammaantiin muuqaalkan layg saaraya si uu u gaaro dad fara badan isla markaana kooxdan maafiyada ah ee waddanka haysata ee damul jadiid markaasi aad ugu geydaan filada ay degan tahay una sheegtaan una tustaan in ay markaasi waxba ka jirin warka propagandada ah oo ay ku faafinayaan baraha bulshada iyagoo adeegsanaya in ay geeriyootay hooyada dhashay xabiibul malaayiinkii ay ummaddu jeclayd waa farmaaje inta aan sidoo kale muuqaalkan guda gelin fadlan qaybta hoose ee commentiga hal mar waxaad la dhacdaan qoraallo markaasi ka dhan ah kooxda damul jadiid idinkoo fahansiinaya in uu eebaweyne qofkii dhinta uu dhimanayo muuqaalkan waxaan sidoo kale idinkula wadaagi doonaa xaaladda nololeed ee haatan ay ku sugan tahay markaasi hooyada dhashay maxamed cabdulaahi farmaajo YouTube-kan xaqiiq TV mar walba waxa aynu ku tabin doonaa wararka xaqiiqda ku salaysan inaga oo xog hoose idinka soo siin doono xaaladda hoose ee Villa Soomaaliya ka jirta maadaama kooxda damul jadiid ay waddanka la wareegeen isla markaana maalmo dhow markaasi uu waddanka si toos ah ula wareegi doono madaxweynihii ummaddu ay jeclayd xabiibul malaayiinkii ay Soomaalidu jeclayd waa maxamed cabdulaahi farmaajo oo ah nin aan qabiil aqoonin isla markaana bulshada ay u sinnayd si weynna waddanka wax uga qabtay waxaana farmaajo lagu xasuustaa 5 sano ee waddanka uu joogay sida uu markaasi dhuunta ugu dhagay waddamada Kenya iyo isku tagga Imaaraadka Carabta ee Dubai kuwaas oo Soomaaliya duulaan ku ah iyaga oo mar walba Soomaaliya ka fiirsada danahooda gaarka ah muuqaalkan hal mar aynu like saarno si saaxiibo badan u gaaro YouTube-kan xaqiiq TV subscribe saaro taa waxay ka caawinaysaa inaad hesho warbixinadii ugu dambeeyay aynu halkan ku baahinno daawadayaal waad ku mahadsantihiin daawashadiina muuqaalkan haddii aynu guda galno xaaladda hooyada dhashay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo xabiibul malaayiinkii ay ummaddu jeclayd ayaa haatan markaasi soo hagaagaysa kadib xalay waxa ay ku hoyatay isbitaalka Digfaar ee magaalada Muqdisho xilli markaasi si weyn xaaladeeda caafimaad loogu dabiibayay isbitaalkaasi isbitaal Digfaar xalay waxa ku hareereysnaa ciidan gaashaaman oo markaasi indhuhu ay u xiran yihiin isla markaana ka amar qaadanayay madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyaga oo markaasi ciidamadaasi si weyn u ilaalinayay
amniga hooyada dhashay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo maadaama shalay xilli dambe loola cararay mid ka mid ah isbitaallada ku yaalla magaalada muqdisho xilli hooyadan uu ku kacay markaasi dhiigkar ama sonkor ay qabtay hooyadan oo la sheegay inuu ku kiciyey mid ka mid ah wiilasha ay dhashay wiilkaasi oo la sheegay inuu farmaajo ka yar yahay waxa uuna kula murmay hooyadiis hoyga ay ka degan tahay magaalada muqdisho maadaama ay la nooshahay hooyadan madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo ay gurigiisa ku sugan tahay isagana uu si weyn uu u jecel yahay una xanaaneeyo xalay xilli dambe isbitaalka digfeer ee magaalada muqdisho waxaa gaaray madaxweyne xabiibul malaayiin maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uuna soo booqday hooyadiisa oo isbitaalka ku xanuunsaneyd isagoo farmaajo codsaday in qaybtan emerjensiga laga saaro maamada isla markaana xaafadiisa uu u wado balse dhaqaatiirta caafimaad ayaa uga digay halista ay leedahay haddii isbitaalka laga baxsho hooyadan iyada oo aan xaaladeeda caafimaad la baxnaanin sidaas darteed madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xalay xilli dambe isaga soo tegay isbitaalka digfeer ee magaalada muqdisho waxaana isla markii uu ka soo tegey isbitaalka markaasi digfeer ee hooyadiis ay taallo ay kooxdan maafiyada ah ee damuljadiid ay bilaabeen inay dacaayad raqiis ah ay ku furaan hooyada dhashay maxamed cabdulaahi farmaajo iyaga oo ku sheegaya in ay gebi ahaanba ay geeriyootay subxaan allah waa arrin musiibo ah qof ilaahay aan dilin haddiiba la marayo in markaasi la dhaho wuu geeriyooday waa arrin yaabkeeda leh kooxdan maafiyada ah ee markaasi damuljadiid waxaan xasuusannaa in maalmahan ay baraha bulshada dadka markaasi sida weyn magaca uga leh oo isla markaana taageersan kooxda markaasi nabad iyo nolol ee xabiibul malaayiin ay markaasi barahooda bulshada ay ka xirxiraysay iyada oo u gudbinaysay inay dhinteen subxaan allah waa dowlad soomaaliyeed waxa ay ku hamisay hooyo qaran oo markaasi dhashay ninka siyaasadda loogu jecel yahay ee farmaajo inay markaasi dacaayad ku furaan ilaahay shartooda ha ku koobo ilaahay indhaha markaasi ha beylsiyo ayaynu leenahay kooxdan maafiyada ah ee waddanka la wareegtay isla markaana raadinaysa dulduleelo yar ay markaasi ka weeraraan xabiibul malaayiinka ay ummaddu jeclayd maxamed cabdulaahi farmaajo oo dhowaan sheegay in 4 sano ee soo socota uusan dalka ka bixi doonin dowladdana uu si dhow ula shaqayn doono maadaama uu yahay nabadoon soomaaliyeed iyo oday soomaaliyeedba ayaa waxaa la filayaa in saacadaha soo aadan hooyadiis ay ku hadasho hoyga ay ka degan tahay magaalada muqdisho walow weli isbitaalkii aan laga soo saarin iyadoona soo fadhiisan doonto kaamirooyinka si ay u beeniso hadalladan dacaayadda ah ee ay markaasi baahinayaan dad markaasi si dhow u taageersan kooxda maafiyada ah ee waddanka la wareegtay ee damuljadiid daawadayaal hal mar gacantiina fura aynu u hiilinno farmaajo hooyadii dhashay ayaa lagu markaasi sheegayaa inay geeriyootay kooxaddana gaar ah wata ayaa arrinkan ka shaqaynayo hal mar aynu farmaajo garab istaagno maadaama uu ummaddiisu isaguba uu garab istaago xilliga ay markaasi tabarta daran yihiin oo ay liitaan waxaan ku garab istaagi karnaa in muuqaalkan dhammaanteen aynu like saarno si saaxiibo badan uu u gaaro una sheergareeya saaxiibada facebooka idinku weheliya una sheergareeya saaxiibada youtubeka idinku weheliya haddaad dabcan youtubeka inaga daawanaysaan si uu muuqaalkan meel fog u gaaro xaqiiq tv mar walba waxaynu halkan ku soo tabin doonaa wararkii iyo warbixinadii ugu dambeeyey ee oo xaqiiqda ku salaysan maadaama aynu wadanno magac weyn oo markaasi soo koobaya sida aynu xaqiiqda u baahinayno idinkuna waxaan idinka codsanaynaa inaad xaqiiqda aynu baahinayno aad nagu garab siidaan oo aad youtube-kan subscribe saarataan qaybta cas ama guduudanne ee gambaleelka aad furataan si aad u heshaan wararkii ugu dambeeyey ee markaasi halkan aynu ku soo baahin doono adiga oo gurigaada jooga laga yaabo inaad markaasi qolkaaga aad iska dhex jiifto ama aad cuntaynayso ayaad youtube-ka dhag siisaysaa waxa aadna daawanaysaa xogo hoose oo aynu inagu markaasi aynu u soo rafaadno oo aynu u soo dhididnay si aan adiga oo gurigaaga joogo aynu xogta kugula wadaagno marka hanaga xaasidin inaad markaasi subscribe youtube-ka aad saarato min sharri xaasidin idaa xasad qofka xaasidka ah ma liibaano aakhirana meel xun ayaa u dambaysa ilaahay ayaana ka jaasaynaya xaasid ha noqon youtube-kan subscribe saaro si saaxiibo badan uu u gaaro mar walbana aynu garab istaagno kooxda ugu awoodda badan baraha bulshada nabad iyo nolol oo uu markaasi hogaamiyo xabiibul malaayiinka ay ummaddu jeclayd farmaajo